بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم kusoo dhawaada beeraha TV ku xidhnaa beeraha TV si aad uga bogato barashada cilmiga beeraha iminkan waxaan ka hadli doonaa oo wax ka sheegi doonaa dalagga loo yaqaano muuska wuxuu ka mid yahay dalagyada perennialka sida u jeedeen marka la abuurayo wuxuu u baahan yahay space ugu yaraan 3 mitir ilaa 2 mitir ayuu u baahan yahay marka mid kasta oo kamid ah wuxuu leeyahay sacris ama laamo geesaha ka soo baxa laamahaas waxay ka caawinayaan inay geedkan sii jiro oo amri dheer u sii yeesho maxaa yeelay laan kasta marka ay dhasho hal gacan markay dhasho hal gacankaas markay dhasho ayada dhan waa laga taqalusay laantan hadda haddii gacankan laga goosto automatically waa laga taqalusay marka waxaa bedelaysa laantan tanaa bedelaysa oo marka kabacdi taas marka laga taqaluso tanaa bedelayso mar kasta oo marka uu dib u sii dhaco oo laanta ka dambaysa way ka macnaha xajmi yaraanay miraha macnaha waa shay waxyaabaha ka baxaya ama gacanka ka baxaya uu ka xajmi yaraana kii ka weynaa oo ka horeeyay kii kaas xajmigiisa marka taasna waa midaas marka dalagan wuxuu u baahan yahay biyo badan isagoo u baahan haddana lama ogola in biyahaas salkiisa ay imaadaan waa inay cabaa qaab sumow ah marka wadadan biyuhu u imaanayaan wadadana biyaha la fariisinaa kabacdi geedkan meeshaas tuurkaa uu saaran yahay biyaha saas uu ku cabaa marka koowaad uu yar yahay wuu u baahan yahay biyihii inay salkiisa imaadaan laakiin markastuu sii weynaado waxaa loo badinaa buurka uu saaran yahay la kordhinaa kabacdi waxay noqonaysaa marka in laga ilaaliyo biyahaas baaburan si aan ugu dhawaan runtu maadaama uu geedkan xididda waaweyn oo dhulka sii gaara uu salaha inuu dhulka ugu sii jira marka meeshaan uu saaran yahay marka jiriduugaasaa lagu ilaaliyaa oo jiridda loo duugaa waxaa laga ilaalinaa inuu dhaco mararka qaar haddii laankoo kale ama gacanka uu zaa'id u weynaado oo xeli waayo tiirada lagu tiiriyaa waxbaa lagu tiiriyaa marka noocaasa geedkan loo abuuraa oo noocaas u baxaa markaan u fiirino faa'iidooyinku bini'aadamku leeyahay wadamada qaar wuxuuba ka yahaba stable foodka caadiga uu ka yahay marka waxaa weeye waa stable food uu ka yahay marka muhiimad weyn uu leeyahay dhaqan ahaan Soomaalidu waxay u isticmaashaa macnaha inay cuntada kor saartaan ay ku cunaan ayay u isticmaalaan meelaha qaar beeraleydana waxaaba arkayba iyagoo stable food ahaan u cunayo oo soo qaataan ku dhacdo shaaxooda cabaaya baad arkaysaa marka sidaas weeye waxaan kusoo koobaynaa intaas intii aan ilaahay naga garansiiyey baaritaan kalena waynu ku samayn doonaa insha allahu tacaala oo dib aan ka soo sheegi doono waxyaabaha marka waan rajaynaynaa inaan intaas faa'iidada iminka ku soo koobno. Assalaamu calaykum.